إيمانك إن شاء الله بشوف صواري مقاعد أسد محمد حسن xaaskiisa oo u dhashay 5 caruur ah kan ugu yarna hooyadiis ay kula jirto isbitaal ku yaala Garowe ayaa dhaqaatiirta isbitaalkaasi waxay sheegeen in habdhiska neefsashada uu ka xiran yahay ilmahan oo uu markasta u baahan yahay in oxygen lagu xiro waxa uu noo sheegay Asad in loo haysto lacag ka badan $2,000 kirada guriga iyo 4 caruur ah oo uu hayo oo uu sheegay in maanta uusan u awoodin wax uu siiyo iyo waliba inuu bixiyo lacagta isbitaalka xaaskiisa ay ku jirto si looga saaro ilmaha yarka uu dhashay naqas la'aan buu dhashay adoo xogaa oxygen baa ku xiran oxygenkii adigu iyo dawooyinkii qarashaad badan bay soo dalacdeen waxayna soo dalacdeen ilaa adigu $2,500 halkii litir oo oxygenka ana waxay noogu dhufteen $4 wax qarashaadana ma hayn wax ma aragtay amalaho maanta aan Puntland ku hayo oo shaqo ahan ama jirto waayo cilada ugu weyn oo aniga haysata waxa weeye aqoon-yahan baan ahay Puntland ku dhashay ku barbaaray waxna ku dhalay cilada ugu weyn oo haysata waxay tahay haybsooc wax la yiraahdo yeena haybsoocay haybsoocaasoo ah nin ma dhibaana ama nin midgaana la leeyahay inuusan meelna uusan wax ka qabsan karin maanta ma garad anigu ma dhibaanaan haado laakiin caruurtii anigu wax soo bartay maanta oo Puntland u taagan inaan gurigeyga aan aqoontayda u shaqayn waayo oo aqoontaydii aan xafiisyadii iyo meeshii aan la tagaba ay ii socon waayeen horta waa nasiib xumo ka gudub waxaan iska noqday xoogsato haddana xoogsatadii dhismagal dabgal oo jikooyin maaragtay marba sidii xoogaaga iyo waxaaga biilka ku soo dhacsan kadib gurigaaga uga soo dhacso maanta heer waxay maraysaa aan awoodi kari waayo lacagtii awlaadeyda lagu daweeyay inaan bixin kari waayo taasna ay tahay caqabad xagga shaqo la'aanta oo haysata maanta Puntland gudaheeda ay u haysata marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahayna wuxuu leeyahay istaqim kama umirta wa man taaba macak danta iyo daruufta haysata ayaa keentay in uu warbaahinta hor yimaado Asad oo ah nin dhalinyaro ah oo aqoon-yahan ah waxa uu sheegay in meelo badan oo uu shaqo u raadsaday lagu haybsoocay maadaama uu ka soo jeedo beelaha ay Soomaalidu takoorto ka imtixaan galo oo warqadayga xafiisyada dhigto aan loo ninka cidaasaan ahay oli hor waraysto in adeerkiisu meesha qof kasta keensanaya oo qof kasta wuxuu keensanaya in adeerkii waa maanta ma taqaana shaqo la'aan oo meesha ku buuxsanaya in kale oo shisheeya cidna uma baahna xaalado badan baan soo maray waxa jira marka xafiisyo lagu yiri waa jiraan xafiisyo waxa jira aan intaan galay oo number 1 aan galay oo haddana bari markaan soo doontay shaqadii oo qof kale uu ku jiro ama qof kale la soo dhajiyay darbiga lagu soo dhajiyay aan la kulmay markaan xataa aan sii waraysto aan iri maxaa khaldan oo imtixaankayga waa suuba 100% baan ahaa maxaa khaldan in la yiraahdo xataa ma garan karno laakiin waxyaalo badan baan soo kulmay aan rabin in aan adeerta aan faaqado sida ay tahayna Puntland shaqaan ka rabaa oo intii ma aragtay xaaladda anu maanta aan ku suganayna Puntland gudaheeda ugu suganahay meel kale uguma suganay waxa uu shacabka Soomaaliyeed oo meel kasta dunida ka jooga ugu baaqay in daruufta haysata isaga iyo waliba qoyskiisa laga caawiyo maadaama maanta daruufta ay keentay halkaasi sida ay tahayna Puntland shaqaan ka rabaa oo intii ma aragtay xaaladda anu maanta aan ku suganayna Puntland gudaheeda ugu suganahay meel kale uguma suganay fariinta u dambaysan bulshada u diraayo waa caawimaadkaas in maaragtay la soo caawiyo iyo shaqo la'aantaas ay hayso in shaqo abuur la sameeyo warbixintan waxaa soo saaristeeda iyo duubisteeda iska kaashaday wariye Khaliif Geelle iyo waliba anigoo Xasan Haykala